Xuqaasha iyo waxgaradka beesha Cabdallah Arab ayaa cambaareeyay go'aankii ay dowladdu maanta ka soo saartay balliga Diiriye Guuleed taasi oo go'aanku ah in la baabi'iyo deegaankaasi oo laga dhigo dhul daaqsimeed. Waxay sheegeen inaanay ogolaanaynin go'aankaasi ka soo yeedhay dowladda, taasina ay tahay mid wasiiradu ay ku doonayaan in deegaanadaasi ka dhaco dagaal. Waxa kale oo ugu baaqeen dowladda in si degdeg ah looga noqdo go'aankaasi ay gaadheen, taasi oo ah mid cadaalad darro u dhacday oo nabadgelyada hoos u dhigaysa. Waa sida ay hadalka u dhigeen Oday Axmed Maxamed Cilmi, Oday Yuusuf Xandulle, Oday Cumar Abubakar Xaaji Muuse, Xildhibaan Kayse Cabdi Raage oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo odayaal kale waxay si isku mid ah u cambaareeyeen go'aankii ka soo yeedhay dowladda, taasi oo ay ku sheegeen inaanay marnaba qaadanaynin go'aankaasi ay tahay mid nabadgelyada xumaynaysa. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii Cabdallah Arab amarka lagu soo bixiyay saaka xukunkaas saaka la soo saaray ay soo saareen wasiirada loo soo diray hawsha iyo madaxweynaha dhammaantood go'aankaas waa mid nagu jaban mana aan qaadanay. waxaan leenahay adduunku dee ma aha xaq darro in lagu xukumo dad islaam ah oo iska deganaa magaalo la yidhaahdo guura meelna idiin rari mayno. wax caqliga geli kara ibni aadanka oo la qaadan karo ma aha. waxaanu leenahay madaxweynaha iyo la taliyayaashiisa iyo ummadda islaamka ah ee Soomaaliland waxaanu leenahay waxaanu qaadan karno ama la liqi karo ma aha. go'aan noo qursamayn ma aha, mana qaadan doono, mana qaadan mayno. annagoo ka hadlayna go'aanka ay saaka gaadhaan wasiiradu ee inta badan xaaladda nabadgelyada aan ku warwareejinay aan ku meermeerinaynay ay go'aankii cad ay saaka noo dhiibeen in meeshaasi dagaal iyo rabshad cad oo horle ay ka bilaabanto oo arrinkii aan hor taagnan ay saaka ay bilaabeen. dawlad waxa aan ogeysiinaa caalamka, dawladda aan u sheegaynaa go'aankii aan hor taagnayn inay qaaday dawladdaasi go'aan cad oo sharci ah oo dawdarro inay nagu qaado ay nagu filisay oo aanan qaadan doonin. nabadgelyadiina ummadda loo hayay ummaddu ay ku dhisnayna ay dumiyeen saaka oo ay weerar ku soo qaadeen. arrinkaa waxaanu caddaynaynaa cambaaraynaynaa arrinkaas inaan wax ka jira aanay jirin. ummadda aan u sheegaynaa, beelahaan u sheegaynaa, dawladdaan u sheegaynaa, madaxweynahaan u sheegaynaa goobtaas inay goob ay colaadi ay ka horiyeen ay tahay wasiirada maayirka magaalada, wasiiradii loo soo diray gobolka iyaguna ay ku raacintii meesha ay ka taagnay oo halkaas colaad ay ka dilaacday ay ka bilaabantay ayaanu saaka u sheegaynaa. iyadoo magacayga Cumar Abubakar la yidhaaho waxaanu sheegaynaa arrintaa saaka nalagu qaaday ee xukunka xaaraanta nalagu qaaday inaan beesha Cabdallah Arab yeelaynin qaadanayninna wax kastaaba haddii ay dhacaan. sababtoo ah 300 sannadood meeshaanu deganayna aanaan meel looga kicin. maanta cadaalad xumada nalagu qaaday ee la yidhi ka kaca oo ka qaada dhulka cagaa ilaa heer madaxweyne, ilaa heer wasiiro, ilaa heer maayir lagu qaaday. ilaahayna waa arkayaa, Soomaalilandna waa wada arkaysaa. beelaha Soomaaliyeed ee degan nala degan iyo kuwa meel kasta degan iyo kuwa gobol kasta degan ha maqleen qaadan mayno haddii aan wax yarina laga hadhayn qaadan mayno. waxaanu leenahay arrintaa waxaa la mid ah 150 tuulo oo hareeraheeda oo ka wada dambaysay oo aan la hadlaynin. haddii intaa xoolaha daaqeenkeeda oo dhan la xidho annagu waanu ku qanci lahayn. waxaanaanu ka hadlaynaa xaqdarrada saaka nagu xukuntay gobolka Burco ay nagu xukuntay iyo wasiirada uu soo dirtay madaxweynuhu ama se beesha reer Biniin ama Axmed Faarax ma u shaqaynaysa. taasoo xaqdarro ah oo aan macquul ahayn. magaalada jirtay 180 sannadood jirtay ee beeshu degan tahay ee sharciga leh ee iyadu goysay aan sharciga iyadu samaysay haddana ay leedahay saaka bi
iyo dawladdii samaysay sharciga samaysay ay wali dhisanto aanay dumin saaka ay bedeshay tira hal dumin waxaanu leenahay ummadda u sheegaynaa inay taasu tahay xaq darro ay soo qaaday xukuumadduna ay wadato beesha Axmed Faarax wixii ay doonayso ay aqbashay waxaan u sheegaynaa beesha Soomaaliland ummadda Soomaaliland in ay maanta arrinta halkan ka dhacday ee ay wasiiradu ay la yimaadeen ay tahay tii ummaddu ay isku dili jirtay madaxweynuhuna uu og yahay xaaladda taagan iyo waxa socda in haddii eebba kuuru yahay arrinkaasi uu yahay arrin dagaal lagu oogaayo oo ummadda reer Soomaaliland wixii ay u soo halgantay ee midnimadeeda ay soo dhimatay maanta lagu wiiqaayo ayaanu u aragnaa waxaanu leenahay haddii mudane madaxweyne warqadan baad ku taallaa lagaa been abuuray oo aad ogtahay arrintanaad soo fulisay inaad degdeg uga noqoto haddii aanay ahayna wixii arrinkan keenay ee wasiirrada ahaa in aad tallaabo degdega aad ka qaado waxa weeyaan waxa lagu wiiqayaa qarannimadii Soomaaliland wixii aynu soo halgannay 22 sanadood ee caalamka tusayna waxa ay nabadgelyo ku noolahay maanta nabadgelyadii baanu baabiinaynaa meesha waxa weeyaan waa dalkii baa la baabiinayaa iyo dadkii taana waxa weeyaan annagu nabad baanu ka shaqeynaa anagoo xildhibaankii beesha Cabdalla Arab amba Arab Bariyaba waxaan leeyahay arrinkaas wax la qaadan karo maaha wax qaran iyo dawlad ay ku talin karto maaha magaalo dhisan oo sharci leh ayaan dubinayaa wax dhacaya maaha mana qaadanayno isku soo wada duubo hadallada ka soo yeedhaya cuqaasha iyo waxgaradka beesha Cabdalla Arab ayaa ah mid ay ka biyadiideen xukunka sida cadaalad darrada ah loogu qaaday iyagoo dawladana cod dheer ugu baaqay inay go'aankani ay ka noqoto taasoo ay ku sheegeen inay tahay mid nabadgelyada xumeynaysa oo dagaal oogaysa waa Khadar Cabdirasaaq Suleebaan shabakada caalamiga ee Hadwanaag News magaalada Burco.